guddi hoosaadka dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Somaliland oo soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulamo la qaatay maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco wakaalada biyaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer. Kulamadani ayaa daaranaa u kurgelidda ilaha dhaqaalaha ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Cabdirashiid Cagaweyne, gudoomiye ku-xigeenka guddidaasi Barkhad Maxamed Hurre iyo xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Burco. waxaanu ka soo kictinay magaalada Hargeysa annagoo ah guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga waxaanu soconaynay inaanu la kulanno ilaha dakhliga ee gobolka guud ahaan gobolka saaka waxaan kulankii koowaad la qaadanay dawladda hoose ee degmada Burco. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa warbixinta ayna siiyeen waafiga ahayd aad iyo aad bay noogu warrameen xildhibaanada iyo maayirkii madaxweynaha xogayu xaaladda guud ee dhaqaale. taas baan runtii inaan xogaal u noqono maadaama miisaaniyadda nagu soo fool leedahay warbixino dakhli inaan helo oo daraskii hore 2021 la sameeyay waxaa runtii ka suura galay ayaan runtii xogaal iyo kuurgal u ahayn. ujeedka kulankani wuxuu ahaa maadaama goluhu leeyahay guddiyaad in guddida arrimaha dhaqaaluhu ay u kuurgasho xaaladda shaqo ee hay'adaha dakhliga soo saara maadaama sanadkani dhammaanayo sanadkii kalena soo socdo miisaaniyaddii qaranka loo diyaar garoobayo. runtii guddidu waxay xog badan ka heshay goobaha aynu sheegnay ugu horreyso dawladda hoose xafiiska barasaabka wakaalada biyaha iyo hay'adaha hukuumadda sida wasaaradda maaliyadda. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan mas'uuliyiinta sida qiimaha leh warbixinta iyo soo dhaweyntaba ay noo siiyeen. waxaase reer Togdheer gudoomiye maanta sharaf weyn waa guddidii koobaad ee intii golaha cusub yimi safar u baxda ee caasimadda ka baxda ee gobolada tagta. waxaa nasiib u yeelatay magaalada madaxdii labaad ee Burco inaan maanta nimi. waxay taasi muujinaysaa inaanu golaha wakiiladu si weyn u qiimeeyeen Burco. hawlaha warbixinta ka dhawaajisay uu ka mid yahay madaarka Burco, uu ka mid yahay dhakhtarka weyni, uu ka mid yahay iskuulka farsamada gacanta, ay ka mid tahay wadooyinku bariishka saddexaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi dhagax dhigay. insha Allah tacaala waxaan waan noo garayn doonaa wasaaradaha qusayso iyo budgetka marka naloo keenaba insha Allah tacaala ishaan ku hayn doonaa. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Xoday, maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Hiro iyo maareeyaha wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa soo dhaweeyay xildhibaanada ugana warbixiyay xaaladda dhaqaalaha ee gobolka Togdheer. warbixino fiican baan wadaagnay guud ahaan Burco ama gobolka Togdheer waa xudunta dalka dabarada guud ahaan haysta dhaqaalaha gudaha midna waa mid qaran oo tala qaran u baahan oo baaq u baahan. marka kan guud waxa weeyaan cusbitaalka iyagu wuxuu referral u yahay cusbitaalada bariga oo dhan waana cusbitaal aad u weyn sida aawadeed wuxuu aad u tabayaa dib u casriyeyn maadaama uu culays weyn oo gobolada bariga ay saaran yihiin. marka labaad ee kale airportkii oo muddo xaniban kaasina in bal wax laga qaban karo oo airportkaas la furo laantii caqabad ku yahay. seylada lafteediyo guud ahaan adhigii ay naga taagan marka in suuqaana la furo isaguna caqabad ah. waxa kale oo isaguna jira wadada Oodweyne iyo Hargeysa oo isku xidhi lahayd gobolada bariga iyo galbeedka si qurux badan. dawladda hoose miisaaniyadeedii waa kordhinay dhaqaalihii localka ahaa waa isku daynayna wax ka dhaqaajino. farxad weyn bay noo tahay inay u doortaan gobolkii Togdheer inuu noqdo gobolkii ugu horeeyay u kuurgalaan xogolaalna u noqdaan baahiyaha xagga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda halka uu marayo. indhihiina waa ku aragteen wixii uu qabsoomay reer Burcana runtii indhihiina ku aragteen. soo dhaweynayna oo si qadarin iyo xushmad iyo halkarnimo ay ku jirto soo dhaweynayna xubnaha golaha wakiilada qaybta dhaqaalaha iyo dabagalka ganacsiga ku soo noqday gobolkii Togdheer si ay ugu kuurgalaan baahiyihiisa aasaasiga ah ee gobolka ka jira. Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV Burco.